إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هاو نحرستو إلهي رحمديسا جناديسا فردوسها كورابي walaalkeen cabdixakiin cabdiraxmaan ciise dhagajuun oo xalayto ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib rasaas ay ku fureen ciidamadeena booliska. waxaan uga tacsiyeenayaa halkan qoyskiisa, eheladiisa iyo asxaabtiisa iyo degmada hodan ee uu hogaaminayay. waxaan kaloo uga tacsiyeenayaa gobolka banaadir iyo caasimadda dadka ku nool ee muddadii ugu dambeeyey uu ka shaqaynayay. waxaan leeyahay ilaahay sabr iyo iimaan hanaga siiyo, isagana kitaabkiisa midigta allah ka siiyo. walaalkan wuxuu ahaa qaali uu nagu ahaa, wadani ayuu nagu ahaa, nin wadankiisa u shaqaynaya ayuu ahaa. waxaa weeye hore ayuu ugu dhaawacmay, dhaawacii ayuu kasoo bogsooday, shalay ayuu wadanka kusoo noqday, isla shalana shaqadiisii ayuu galay, kadibna shaqadiisa isagoo ku jira ayaa la rasaaseeyey, rasaastii ayuuna u geeriyooday. ilaahay ha u naxariisto walaalkeen cabdixakiin. run ahaantii xalay markii la ii sheegay aniga waxaa weeye isbitaalka ayaan tegey, waan arkay meydkiisa, waan arkay. waa wax laga naxo weeye runtii in ciidamadeenii inay maxaanku yidhaahdaa iyo saraakiisheenii gobolka ka shaqaynaysay gacantooda uu ku baxay. waxaan rabaa inaan sidaas aan u diro shacabka soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka banaadir. waxaan kaloo rabaa inaan u caddeeyo shacabka gobolka banaadir iyo soomaaliba in saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiin cabdiraxmaan ciise in gacanta lagu dhigay oo ay baaritaan CID da ay u joogaan oo ay xiran yihiin. wixii ka maqan ku lug yeeshana lagu raad joogo, qof kasta oo lug ku yeeshana arrintaas in sharciga iyo cadaaladda la horgeyn doono. marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo shacabka degmada hodan iyo shacabka gobolka banaadir isdejiya isdejiya isdejiya, gacanta ayaa lagu hayaa. waxaa ilaahay mahadiisa in ciidamada boolisku ay soo qabteen saraakiishii iyo booliskii ku lugta lahaa arrintaas in gacanta lagu soo dhigay, kuwii maqanna lagu raad joogo, qof kasta ku lug yeeshana gacanta lagu dhigi doono haddii alla yidhaahdo. marka waxaan leeyahay isdejiya walaalayaal, yaana lakaga faa'iidaysanin arrintan, yaana lakaga faa'iidaysanin cadowga argagixisada ee cadowgeenna yuusan nooga faa'iidaysanin ayaan leeyahay. isdejiya ayaan leeyahay shacabka gobolka banaadir iyo degmada hodan. run ahaantii waxaa weeye arrintan guddi ayaa gobolka u saaray aaskiis maamula oo maxaanku irahdaa hagaajiya aaskiisa iyo tacsida iyo qoyskiisa. waana runtii arrin ay dowladda gacanta ku hayso. run ahaantii dowladdo dhanna aad iyo aad ayaan arrintaasi maxaanku uga tiiraanyeysannahay, uga xunnahay. waana runtii waxaan leeyahay wax in laga barto ayaan isku dayeynaa haddii alla yidhaahdo, in ciidamada yadu ay maxaanku irahdaa iyo madaxdeenu ay dhibkan oo kale ay ka dhex dhaco. waa waxbaan ka baranaynaa, tababarkoodaa dib loogu noqonaa, shaqadoodaa dib loogu noqonaa. maxaa yeeley shacabka iyo madaxda inay badbaadiyaan ayaa la rabaa. in madaxdii iyo maxaanku irahda shacabka dhib loo geysta ma ahan. arrintan waxbaan ka baranaynaa. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.